shir weyne oo ay soo abaabuleen jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahanada culamaa u diinka saraakiisha ciidamada qalabka sida odayaasha dhaqanka qurba joogta ayaa habeenkii xalayta ahaa lagu qabtay magaalada Qaahire ee xarunta waddanka Masar. shirkaasi waxaa ka soo qayb galay Colonel Umar Xaashi Aadan oo ah xogayaha amuraha gudaha isbahaysiga dib u xureynta dalka Soomaaliya, xubinna ka ah guddiga amniga isbahaysiga dib u xureynta dalka Soomaaliya ee garabka Jabuuti, Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo ah xogayaha golaha dhexe ee isbahaysiga dib u xureynta dalka Soomaaliya, xubinna ka ah guddiga siyaasadda isbahaysiga dib u xureynta dalka. shirkan ugu horeyn waxaa ka hadlay Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo xubin sare ka ah guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar oo dadka xasuusiyey inay faa'iido lahayn kala tagga iyo tafaraaruqa, waxuuna tusaale u soo qaatay halkii ay mareen maxkamadihii kuwan ka horreeyey in ay burbureen. asiga oo taa ka hadlayana waxa uu yidhi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ودكسنتين أوسي خسر جاي كسود دكتور داس كدي مركي دجالكودا يفندودا يخلافكودا وبطي واتي مركي إسلامك وتجي ماركت المدينة ولا ليسي مهاجرين يا أنصار ولا ليسي أوسي خسر جو دجال بدن كده هجري كدبنا النقدين ضد ولا علاء وسكحرن حتاسنا وحى صوبت إسلامك أيها سببي كسنتين وفقتوا ورئيسي واتي برد دراويشتا هي مسجد كيس بايسيga waati dagaal ka dhacay oo lagu la dagaalamay dagaalkaas kaliya ma burburine raggi marka hore remote ka ahaa ayaa remote u taabtayo baashida kale u gadiyeen ala kulli xaal meel kale ayaa laga maamulay waan ogsoonahay taas ayaana waxay sababtay in maxaakiimtii bedelkoodii loo noqdo wixii marka hore laga sheegay. Cabdiraxmaan Cilmi Hilowle oo ku hadlaya dhammaanba codka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa sheegay in la dhageysto madaxda isbahaysiga dib u xureynta dalka Soomaaliya, waxa uu cadeeyay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ay qayb weyn ka qaadatay sidii loo xureyn lahaa dalka Soomaaliya. misirka ummadda Soomaaliyeed wax badan ayay ku leeyihiin ayuu yiri reer Qaahira Cabdiraxmaan Cilmi Hilowle. reer Qaahira waxaan jeclaan lahayn in ay dhageystaan madaxdan isla markaana masiirka ummadda wax badan bay ku leeyihiin ay u gudbiyaan ay u sheegaan midalan wixii talooyin ayaga la haboon waxa jiri doona xogaa su'aalaha wixii dhib oo jira su'aalaha jira in la gudbiyo iyadoo oo la ixtiraamayo deganaanshaha wixii aana waa loo gudbin karaa si adeedeedna ayagana waa dhageysan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa kale halkan inaan waxyar cudurdaar ugu soo jeediyo madaxda isbahaysiga. marar badan ayaan dad isbahaysiga kamid ah ayaa waxaan ka maqlay oo dhahaya halgan ku socday oo Soomaaliya dhib ka jiray wadamada dibadaha oo dhan waxaa ka dhacay barnaamijyo looga soo horjeedo joogitaanka Itoobiya iyo ciidamada shay iyo dagaal xasuuqda loo geysanayo. waxaan u sheegi rabaa madaxda isbahaysiga si ay noo gaarsiiyaan madaxda kale ee ka dambaysa in dadka Qaahira ay ku nool dhamaantood ka qayb galeen halgankaas. xafladaas oo xariiriye ka ahaa wariye Xuseen Saxnuuni Xaaji Mire Axmed Mataan waxa uu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha u hayaamay muddo haatan laga joogo 25 sanadood. waxa uu ka yimid waqooyiga Ameerika, waxa uu sheegay marka uu maqlo mushkiladaha Soomaaliya inuu ilimeeyo. run ahaantii Soomaaliya waxaan moogahay ugu yaraan ma aqaano 25 sano. marka aan xusuusto marmarka qaar aad ayaan u xanuunsadaa oo u danqadaa oo ilaa maad leh sharafta lahayday ee maanta iyadana qaarkood ay waddo xun ay qaadayaan. xabadda kay ku dhacday waa iska caadi oo maaragtay waa nin dhintay, balse inta dibadda ku dhibaataysan fiiriya, inta badda ku le'anaysa fiiriya, inta ilaaha maad leh meelaha kaleentood ku dhibaataysan sida South Africa fiiriya. Cabdisamad Xasan Barre waa gudoomiyihii hore ee naadiga ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Masar, waxa uu ku hadlay dhammaanba codka aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Masar. Soomaaliya waxaa qabsaday dhib badan, mana aha wax la soo koobi karo, laakiin waxaa wanaagsanaan lahayd meeshii shir iyo wanaag iyo dib u heshiisiin lagu sheego in la taageero. waddanka waxa uu ku jira dhib badan, waxaana badbaadin kara oo kaliya dadka waxgaradka ah iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxa uu yiri waxa weeyaan Soomaalidu dhib badan baa qabsaday, wax la soo koobi karana maaha, laakiin waxa fiicnaan lahayd meesha lagu sheegay shir iyo wanaag iyo dib u heshiisiin in la taageero. xaqiiqatan waddankan dhib badanna uu ku jiraa, cidda badbaadin kartana hadda Ilaahay ka sokow waa dadka waxgaradka aqoon-yahanada inta wax baratay.
xabad joojintii aan saxiixnay looma hoggaansamin markama waxay xaq u leeyihiin inaan dhahno ayagaa xaq leh oo aan raacno ururka al-shabaab ma aha mid aad idinka taqaanaan waxa aad kala socotaan meediyaha aniga i weydiiya waan idinka ogahay waxa uu yahay al-shabaab aniga waxaan ka imid gudaha dalka gaar ahaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidaasina waxaa yidhi korneyl cumar xaashi aadan oo ah xogayaha amuuraha gudaha islamarkaana ah guddoomiyaha amniga isbahaysiga dib u xuraynta dalka soomaaliya xabad joojinta aan saxiixnay hadde looma hoggaansamin qolyaha aad sheegaysaan umay hoggaansamin ma waxay xaq noogu leeyihiin marka inaan nidhaho ayagaa qumanay aan raacno aniga shabaab waa idinka ogahay idinka waxaa laga yaabaa in idaacadaha ka maqasheen shabaab muxuu yahay waa ogahay aniga gudahan ka imi shabaab ma awood dalka xoray kartaa shabaab kaalintee kaga jiraa halganka muqaawamada waxaasoo dhan wax cad oo gudaha laga ogyahay waa markii iigu dambaysa hadda beledweynaan ka imid way joogaan shabaab waxay leeyihiin meeshaan maamul islaamiyaha ka jira maxkamad islaamiyaha furan dadku islaamkay ku xukuntamaan maxaad ka rabtaan meeshaan u qasaysan oo mashaakil ugu wadaan ayadaan ba diidanay yireen maamulka iyo nabad waxa la sheegahan ba diidanayba dawladnimadan ba diidanayba maxaa rabtaan konton sano soo socdo inuu dagaal ku socdaa hadda shabadaas ma geli karnaa cumar xaashi aadan waxaa kale uu sheegay ninka hadda xabadda la cararayo inuusanba xoogogaal ahayn uusan joogin sannadii 1991kii ninka hadda xabadda la ordaana waa nin hadda dhashay waay nin jiraba ma nin xoogogaal ma ninka 1990kii joogay ma hayo maanta ka dhaxays nin joogay ma wax xabad lagu samayn karaa ma jiraan marmasiya yaraa hadda la haysa Itoobiya joogta Itoobiya aan wali dalkii ka bixin Itoobiya hadda lagu marmasiyoona Itoobiya waa bixi yaa xabad lagu rii doona yaa waa ninka xabadda lagu ridaa oo Soomaali jooga wax looga qaada marka dadku ayaga orbeganaahay dawladda Eritrea ma ogola inay dhamaato arrinta Soomaaliya wasabab waxay rabtaa inay saarnaato dab aan waxba diirinaynin si ay iyada u badbaado dawladda Eritrea waxay neefsatay marka ay ciidamada Itoobiya gudaha u galeen dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadii weyneed ee Muqdisho marka Eritrea waxay rabtaa inay halkaas lagu hayo si ay iyada u badbaado sida aad la socotaan dagaaladii dhaxmaray Eritrea Itoobiya waxa ku dhintay in ka badan 60,000 oo askari mana aha dagaalka waxa bad kaliya lagu xalin karo sidaasina waxa yiri Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo ah xogayaha golaha dhexe isbahaysiga dib u xuraynta dalka Soomaaliya xubinna ka guddiga siyaasadda isbahaysiga dib u xuraynta dalka Soomaaliya dawladda Eritrea ma ogola arrintaanu inay dhamaato wasabab wasi sababayna ayadan dawladda Eritrea waxay rabtaa dab aan wax diirinaynin inaan saarnaano si ay u badbaado arrintu waa cadaan u maleena maalintay Itoobiya Soomaaliya gashay oo Muqdisho gashay ay foolka biyo qabo marsata marka halkeeda in lagu haayay rabtaa ay ku mashquulsanaato haday soo gacan banaanaato ayada dhib gaara Itoobiya dagaal al-harb al-Ethiopiya Eritrea waxa Itoobiya Eritrea uga dhimatay in ka badan 60,000 oo askari baa uga dhimatay khasaar bashariya haa'ila 60,000 askari Eritrea dhan 4 malaayiin nasamo inuu dagaalku ahayn waxa koobaad wax lagu xalliyo awsan ahayn kan labaad awsan ahayn kan saddexaad awsan ahayn kan afraad shanaad iyo lixaad soo gala inta kale dariiqyo kale wax lagu xalliyo la raasha oo dagaal looga baaqan karo sababtu waa maxay dagaal ma sahlana wuxuu kaaga baahan yahay muxuu ahaa khasaa'ir bashariya iyo khasaa'ir maadiya tira badan ayuu kaaga baahan yahay marka inaad khasaare maadiya iyo mid bashariya gasho adiga oo heli kara inaad si kale wax ku xalliso aad heli kara waxa waaye siyaasad xumada ugu weyn la gala waa mahad carab oo cali telefishinka Universal Al Qahira